waxaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo soo gaaray wajigii koowaad ee qalabka dhismaha macdadka wadada gobolka Sanaag taasoo shacbiga gobolka Sanaagna ay muddo dheer naawilayeen inay marwan indhaha saaraan qalabka macdadka dhismaha wadada Sanaag ka shaqeyn doona waxaana shacbiga gobolka Sanaag ay qalabkan ku qaabileen dareen shucuur farxadeed xambaarsan iyo soo dhaweyn maqaamkeedu sareeyo qalabkan ay horkacayeen xubno kamid ah guddiga heer qaran ee dhismaha wadada gobolka Sanaag ayaa waxa duleedka magaalada Ceergaabo kaga hortagay oo halkaasna oo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceergaabo mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo dadweynaha aad u tiro badan waxaana markii qalabkan soo gaaray gudaha magaalada Ceergaabo caleemo qoyan iyo dareen qiiro wadaneed ay ku dheehantahay ku qaabilay dadweynaha reer Ceergaabo oo aan iyagu u kala hadhin soo dhaweynta qalabkan waxaana sharciyada iyo jidadka waaweyn ee magaalada Ceergaabo soo buuxdhaafiyo indhaha ku qabanayeen kumanaan dadweynaha oo qiiraysan oo ku tiraabayay halku dhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay ku sufeeyeen hogaamiyaha hormoodka taariikhda horumarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay maalin aad u farxad badan oo uu soo gaaray qalabkii ay noogu dhaqday dawladda madaxweynaha Silaanyo waxaanu maanta leenahay ninkii hadlaabaha iska hadlo ninkii been moodayna waa ka dawladdu 5 sano ee soo socotay 10 sano ee soo socotay iyadaanu dooranana waxaana leeyahay madaxweynaha culus Ilaahay caadil barakeeyay allahi cirshiga nuuray oo cadow ka dheereeyay mar kale uu ugu celiyo banaa wallahi saaqa dalku intuu leeyahay waa wada maxaafid umana baahnin madaxweyne dambe oo iska soo sharaxa iska Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan balaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo waxaan leenahay madaxweyne nolol weligaana adaan inta nooshahay inta ma hungureenayso waxa iyaguna fagaaraha dawaaradda ee magaalada Ceergaabo dadweynaha qalabkan soo dhaweeyay kala hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Geelle Dacar xubnihii guddiga dhismaha ee heer qaran ee daadihinaya qalabkan oo uu kamid yahay oday Maxamuud Aadan Dheeri oo ku suntan ka qayb qaadashada abaabulka horumarinta dalka iyo wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda Cismaan Cabdullaahi Saxardiid xildhibaan Caartan iyo Mustafa Shiine oo dhamaantoodba ku nuuxnuuxsaday sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu uga dhabeeyay ballanqaadkii xilligii doorashada maanta aynu taaganahay iyo halkan suuqan keenay ayaynu mahadnaqaynaa mar labaad waxaynu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo mar labaad waxaan ugu sii mahadnaqaynaa mar saddexaad Ceergaabo dhowr iyo 20 kiiloo la sameeyay 1926 dhowr iyo 80 sano jirtay inta waxaan leeyahay khayr waajib khayr baa inoo imanaya khayrkii maanta uu noqday aan ilaahay weydiinaynaa wadada uu dhagaxa dhigay madaxweynuhu dhamaystirkeedana inuu furo ayaan ilaahay ka baryaynaa Ceergaabo ugu bishaaraynaa tii maanta qalabkii loo yibiday oo inuu diyaar u yahay dariiqada sameysano waxa kale oo loo bishaareeyay maalmahan dow oo dhamaynay 4 kiiloomitir oo iyada magaalada ilaah baa mahaddaale inaanu ballanqaadkii madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo aanu idin soo gaadhsiinay oo aanu halkan keenay oo dhabarkiina ay taagan yihiin halkan aanu taaganahay aan ka hadlayana ay hadda waa ceeri hadda waa magaaladiina waa ceeri maanta waxa bilaabmay inaynu gobolkeenu ku xidhnaado Soomaaliland qaybtiisa kale waxa mahad leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo taariikhda ku gali doona ninkii dhisay wadada qurba joogtii kuwa lacagta loogu ballan qaaday aanu la bareedin haddaan reer Sanaag tiinka buuraha jooga iyo ka dooxooyinka jooga iyo ka banaanada jooga iyo ka magaalooyinka jooga iyo tuulooyinka waxaanu leenahay tiin la kala heli jiray maahe dacaayaduna ka dacaayay wadadiina ka soo horjeesta shilinka iyo maalka aad u hurtaan uura waa kii taariikhiyan ku galisay shacbiga gobolka Sanaag ayaan maanta ku kala leexan talaabada geesinimada leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ku wajahay dhismaha wadada dheer ee xidhiidhisa gobolada Togdheer iyo Sanaag taasoo ay hore uga maageen ugana baqeen dhamaanba xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray waqtiyadii la soo dhaafay